السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xubuubi luqaax waa shayga aynu u naqaano guushka shinnida. waa meesha shinnidu ay ku dhex samaysa malabka. haddaba guushkan shinnida oo la warshadeeyey loona diyaariyey in la cuno waa shay cajiib ah oo adduunka oo dhan laga isticmaalo. waxaa loo yaqaanaa dawada dhammayska tiran. waxaa ka buuxa midhahan yaryar faytamiino iyo macaadin. haddii aad ogaato waxtarka midhahan yaryarna waxay kugu dhalinaysaa inaad si joogta u isticmaasho. waxtarka caafimaad ee midhahan yaryari ay leeyihiinna waxaa ka mid a waxay xoojiyaan kartida iyo firfircoonida jidhka. waxaana la isku raacay inay yihiin shayga ugu degdega badan ee daweeye xanuunada ku dhaca maqaarka. dhinaca kalena waxay dawo ka yihiin xanuunada ku dhaca sanbabada, waxaanay ka hortagaan xanuunada keena neefqabatowga. isla markaana iyadoo la sheegay wakhtiyadan dambe xanuunada ay dadku aad uga cawdaan inay ka mid tahay xasaasiyaddu, ayaa midhahani waxay meesha ka saaraan mushkuladda xasaasiyadda. dhinaca kalena midhahan yaryar ee laga sameeyey guushka shinnidu waxay meesha ka saaraan bakteeriyada iyo jeermiska ku dhasha caloosha iyo guud ahaanba uurku jirta. waxaanay ilaa xad u fiican yihiin oo ay xoojiyaan aragtida indhaha. waxaanay dawo ka yihiin cilladaha keena dhalla-aanta rag iyo dumarba. waxaad u isticmaali kartaa midhahan yaryar inaad sidooda u isticmaasho oo aad cunto subax kasta iyo inaad quraacda ku darsato. isla dhinaca kalena haddii aad tahay qof jecel cunitaanka lowska, aan kuu sheega shay kale oo aad sida lowska oo kale u cuni karto kana waxtar badan lowska. waana midhaha la yidhaahda fustuq, magacooda kalena uu yahay pistachios. waana midhaha muuqaal ahaan u eeg midhaha yicibta. waana midhaha lagu sheegay inuu ka buuxa dufanka aan lagu naaxin ama lagu cayilin ee jidhkeennu u baahan yahay. waana midhaha laga helo inta badan dacallada adduunka, xataa dhulkeennana laga heli karo. haddaba aynu soo qaadana 7 faa'iido oo ay jidhkeenna u leeyihiin cunitaanka midhahani. waxaanay kala yihiin: kow, cilmi baadhis la sameeyey 2010 ayaa lagu sheegay inay midhahani yihiin waxa ugu wanaagsan ee jidhka ka sifeeya subagowga dhiigga ee kolestaroolka. 2, urur qaabilsan caafimaadka indhaha oo fadhigiisu yahay waddanka Maraykanka ayaa sheegay inay midhahani yihiin waxa ugu wanaagsan ee ilaaliya caafimaad qabka indhaha, iyagoo sheegay inay midhahani ka hortagaan xanuuno badan oo ku dhici kara indhaha. 3, midhahan ayaa la sheegay inay 20% jidhka siiyaan nooc kasta oo faytamiin iyo borotiina oo jidhkeennu u baahan yahay. 4, waxay midhahani si nidaamsan u soo celiyaan miisaanka qofka haddii uu hoos u dhaco. 5, cilmi baadhis la sameeyey 2015 waxaa lagu sheegay inay midhahani 60% anfacayaan dadka qaba xanuunka dhiigkarka. 6, waxay midhahani ilaa xad wanaajiyaan caafimaad qabka wadnaha iyo guud ahaanba isu socodka dhiigga ee jidhka oo dhan. 7, waxay ka hortag wanaagsan u yihiin kansarka ku dhaca caloosha, waxaanay xad u yeelaan calool istaagga soo noqnoqda, waxaanay u fiican yihiin hooyada ilmaha nuujinaysa. mahadsanidin.